hogaaminaya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cabdiweli Jaamac Gurad ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cabdiweli Jaamac Gurad ayaa booqday xerada ciidamada dawladda Soomaaliya qaybta 43 ay ku leeyihiin jaamacadda, isagoona halkaasi kula kulmay boqolaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, isagoona u sii gudbay deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo, isagoona gaaray deegaanka Baarsan Guuni oo dhawaan ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama. Cabdiweli Jaamac Gurad ayaa halkaasi kula hadlay qaar ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya kuwaasi oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka, halkaasina ay isku horfadhiyaan ururka Al-Shabaab, isagoona sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay mar walba garab taagan tahay isla markaasina ay wax walba ay u baahdaan ay la garab taagan tahay. waxaan taaganahay Baarsan Guuni oo ah jiidda hore oo ciidamada muxuu ahaa qalabka sida ama ciidamada Soomaaliyeed meelay ama gobol ha ahaadeen ama federaal ha ahaadeen. waxaan aad u faraxsanahay inaan meeshaan goobta nimaadno oo ciidamada aan ku soo booqanno oo aan ogaano xaaladooda, maxay sidee bay u nool yihiin, maxaa hortaagan, maxay dhibaato qabaan, maxay guul gaareen, maxay ahayto inaan aad ugu nimaadno. aad baan ugu faraxsannahay. hadda ka hor saraakiil baa soo gaartay, haddana waa anigiiba iyo waxaa imid iyo saraakiil kale waa nimid. waxaa goobtaani weeye goob ay ciidamada muxuu ahaa SNA iyo kuwa Jubbaland iyo ciidamo kale oo aan saaxiibo nahay, dalal aan saaxiibo nahay, ay muxuu ahaa ay ka xoreeyeen ciidamada dad ciidanka baalkiin maxay ugus nimanka la yiraahdo ama Al-Shabaab jecel yihiin. Al-Shabaab ma ahna waa ugus weey, magacaasaa loo bixiyey, waa laga xoreeyey, waa ku dhinteen, waxna waa ku dhaawacmeen. waxaan leenahay intii kuwii dhintay oo goobtaan ku dhintay yani waa ka taxsiyeenaynaa. halkan waxaan u nimid waxa weeye baahida ay sheegeen taliyayaashu inaan wax ka qabanno. waxaan u yeelan doonaa il gaara ku yeelanaynaa dawladda federaalka iyo aniga oo ah taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan saraakiishoo dhan iyo ciidankoo dhani waxaan u yeelanayn ku fiirin doonaa il gaara, maadaama duruufta ay adag tahay oo la sheegay xagga caafimaadka iyo xagga taakulaynta iyo xagga agabka kala dhan inay wax badan ka dhiman yihiin. waxaan yeelaynaa haddii aan la yidhaahdo inaan ku dadaalno inaan qalabayno si wada jir ah oo ciidanku uusan ahayn kanaa federaal ah iyo kanaa Jubbaland ah, inuusan noqonayn hal ciidan oo Soomaali ah oo difaacaya dadkooda iyo dalkooda difaacaya inaan u qalabayno haddii la yidhaahdo.